kowda bisha koobaad ee January sanadka 2025 oo maalintii u dambeysay ee bisha January Ramadaan waa nagu soo foodlay bishan February ee bari kowda ah dhamaadkeeda maalinta ugu dambeysay ayaan maleynayaa in Ramadaan noqon doonto Allahna gaarsiiyo dhamaanteen soo dhawaada baarlamaanka gobolka Minnesota gaar ahaan aqalka wakiilada toddobaadkii saddexaad xubnaha dimuqraadiyiinta ma aysan soo xaadirin shalay ayaa toddobaadkii saddexaad uu soo xirmay oo Republicaanka oo kaliya ay imaanayeen jimcihii la soo dhaafay waxaan ogeyn maxkamadda sare in ay dacwadda dimuqraadiyiinta ay u gudbiyeen dhinacooda ay u xukmisay oo ay tiri quorumku waa 68 Republicaankuna waxay haystaan 67 haddaba maxay tahay sababta wali dimuqraadiyiinta ay u soo xaadiri la yihiin kalfadhiga iyo Republicaanka oo shalay dacwad ka gudbiyay xogayaha gobolka oo 4 maalmood oo la soo dhaafay shir gudoominayay aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota waan idila socodsiinaya sidoo kalena waxaa jirta in senator hore oo ka tirsanaa aqalka sanadka ee Congress-ka Mareykanka oo dimuqraadi ahaa isla markaana dambi lagu helay in laaluush uu qaatay wadan ajnabiyan ah oo wakiil u ahaa oo wax u jaajuusayay in 11 sano oo xabsi ah lagu xukumay arbacadii senatorkaasi muxuu yahay maxay yihiin dadka lala xukumay ee dambiyada kale oo uu ku eedeysnaana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse aan ku bilaabo baarlamaanka gobolka Minnesota wali murankii ayaa ka taagan toddobaadkii saddexaad oo isku xiga xubnaha dimuqraadiyiinta ma aysan soo xaadirin kalfadhiga aqalka hoose ee baarlamaanka ee gobolka Minnesota oo 14kii bishan furmay markii hore Republicaanku waxay dhahayeen maadaama aqlabiyadu ay hal kursi ku hayaan oo 67 ay haystaan dimuqraadiyiintana 66 in ay doonayeen in iyagu ay afayeenka ay qaataan gudiyadana ay madax ka noqdaan sida caadiga ah xubnaha aqlabiyada iska leh ayaa afayeenka qaata marka dimuqraadiyiintu waxay doonayeen awood qaybsi in wax lagu xukumo maadaama hal kursi doorashadiisa oo Roseville iyo Shoreview xildhibaankii laga soo dooranayay oo leeyahay 6 bilood ka hor meesha laga soo dooranayay ma aadan deganin oo maxkamadii diiday doorashadiisana gudoomiyaha gobolka uu qoondeeyay inay dhacdo 28 bishan laakiin maxkamadii ay diiday oo leeyahay 22 maalmood kadib kalfadhigu marka uu furmo ayaa la go'aamin karaa xilliga doorashadu ay dhacayso hadda waxay noqonaysaa marka inay dhacdo horaanta bisha March ee saddexaad marka sidoo kalena waxa Republicaanku ay doonayaan xildhibaan kale oo la yiraahdo Brad Tapke oo isagana Shakopee 54A laga soo doorto oo 14 cod kaliya uga guuleystay ninkii Republicaanka ee la tartamay Aaron Powell in ay doonayeen in kalfadhiga uu soo fariisto waxay leeyihiin doorashadaasi muran ayaa ka taagan maxkamadda ayaa xugmisay in xildhibaanka dimuqraadiga uu ku guuleystay ninkii la tartamay oo Republicaankana wuxuu yiri waa laga guuleystay oo maxkamad ma aadayo marka labada arrin oo dimuqraadiyiinta ay ku dacwoonayaan waxay tahay in awood qaybsi ay ogolaadaan Republicaanka iyo in xildhibaankaasi dimuqraadiga ay 14 cod ninka Republicaanka uga guuleystay in ay u ogolaadaan inuu kalfadhiga soo fariisto labadaasina Republicaanku waa ay diidan yihiin marka baashu farfar ku taag ayay maraysaa waxaan ognahay in jimcihii la soo dhaafay maxkamadda sare toddobada garsoore maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ay yiraahdeen quorumku ay shaqo ay ku qaban karaan aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota waa 68 xubnood 68 xubnood la'aantood ma furmi karo sidaa darteed marka isniintii hadda la soo dhaafay waxa la wareegay hoggaanka aqalka wakiilada xogayaha gobolka Steve Simon marka isaga ayaa maalin kasta tagay waxaana dhahayay quorum kuma dhamaystirna sidaa darteed maalinta bari ayaan kalfadhigu isniintii waa uu yiri talaadadii waa uu yiri arbacadii waa uu yiri shalay oo khamiista ahaydna ugu dambeysay waxa uu yiri saddexda bisha oo isniinta ayaa dib la isugu soo laaban doona saddexdii barka galabnimo maadaama quorum uu san jiray waxay leeyihiin dimuqraadiyiintana hadda wax wada hadala oo isaga Republicaanka u socdo ma jiraan marka bahashu waxay maraysaa farfar ku taa gudoomiyaha gobolkana sooma faragelin karo marka bal aan eegno wax yar ila daawada xogayaha gobolka oo 4 maalmood oo la soo dhaafay mar kastaba kalfadhiga quorum la'aan darteed hakinayay waxa uu dhahayay bal ila daawada A quorum is not present. The House is adjourned until 3:30 p.m. Tuesday. The House will adjourn until 3:30 p.m. Wednesday. There being no quorum under the Minnesota Constitution, the House is adjourned until 3:30 p.m. Thursday. There being no quorum under the Constitution of the state of Minnesota, the House is adjourned until 3:30 p.m. Monday, February 3rd, 2025. marka shalay xogayaha gobolka marka maalintii afraad uu dib u dhigay kalfadhiga aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota quorum la'aan darteed waxa ay
xubnaha Republicaanka horey ugu sii dhiibeen bashqada ay ku qoran tahay koobiga dacwad isaga ay ka gudbiyeen xogayaha gobolka waxay dacwadaasi ay ku leeyihiin xogayaha gobolka awoodiisa ayuu ka tilaabsaday waxana uu noo diidayaa sida dastuurka uu noo qabo oo xubno yar oo aqalka wakiilada ah inay dacwad ka gudbin karaan xubnaha kale ee haddii aysan soo xaadirin kalfadhiga marka sidaa darteed waxay leeyihiin isaga ayaa naga hor istaagan oo dastuurka ayuu ka xadgudbayaa inaan ganaaxno xubnaha dimuqraadiyiinta maadaama toddobaadkii saddexaad ay soo xaadiri waayeen waraaqdaasi ayay u dhiibeen maxkamadda sare ee gobolka ayayna u gudbiyeen oo waxay leeyihiin xogayaha gobolka waxa uu ka tallaabsanayaa awoodiisa sidaa darteed waxa uu naga hor istaagan yahay in aan ganaaxno xubnaha dimuqraadiyiinta ee kalfadhiga soo xaadiri waayey muddo 3 toddobaada marka dacwadaasina waa ay gudbiyeen xilliga maxkamadda sare ay dhageysanaysana lama ogo marka waxaa jirta sidoo kale in xubnaha dimuqraadiyiinta oo toddobaadkii saddexaad aan soo xaadirin kalfadhiga in mushaarkooda ay qaadanayeen waxaa la leeyahay xubin kasta oo ka mid ah aqalka wakiilada gaar ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota sanadkii waxa uu qaataa $51,750 marka waxay maalintii u dhigantaa $140 ilaa $141 maalin kasta sidoo kale waxaa jirta in guryaha laga bixiyo $2,200 uu gobolku siiyo maalin kasta oo ay soo xaadiraan kalfadhigan waxay leeyihiin lacag gunnaah oo $86 laakiin mushaarkoodii waa ay helayaan laakiin arinta kirada $2,200 iyo gunnada $86 oo maalin kasta markay soo xaadiraan waxay ku xiran tahay in ay shaqo qabtaan marka labadaas waa ka xayiran tahay laakiin mushaarkooda waa ay helayaan taasi macnaheedu waxay tahay 3 toddobaad ee la soo dhaafay la leeyahay oo xubnaha dimuqraadiyiinta ay soo xaadirin isku darkooda dhamaantood 66 $150,000 oo mushaar ah inay qaateen marka la isku daro dhammaantood marka arintaas ayaa jirta weli farfar ku taag ayay maraysaa Melissa Horman oo gudoomiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta waxay leedahay waa ay diiday Lisa Daymoth oo iyadana hogaamisa Republicaanka inaan wada hadal yeelano sida darteed waxa kaliya waxay tahay aan u baahanahay in awood qaybsi lagu maamulo maadaama aqlabiyad cid leh aysan jirin arintaas oo Republicaanku ay weli diidan yihiin وأنا أركض أن إلا يسنين تدي هشيس أي كجارة هنتك لكن ما موقته قابك أي هاد وحكو سعودان إن هشيس أي جاريان لنا عكله روبرت منانديز وها سنتر ديمقراطية ونيجرسي لجسوا دورنا أي وحى لجو حكومة كوب 8 سنة وحبسها مع المدة 4 داهي سنتر كان واحد جرتي كل واد اللي بصنا كهر إن FBI دجريجيس إنتاج لنا أي كسر هلين ذهب يلعق أضفر بدن أو كجرتي إن كلوستك jaakadaha jeebkiisa xitaa kabihiisa meel kala duwan lacag kaasha ayaa loogu tagay iyo baabuur Mercedes waxa la leeyahay ninkan oo gudoomiye u ahaa gudiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka sanadka waxa uu la shaqeynayay niman ganacsato ah oo Qatar iyo ka soo jeeda Masar si hilibka xalaalka ay u keenaan Mareykanka iyo waxyaabo kale isagana laaluush ahaan ay lacagtaasi kaashka iyo dahabka iyo gaarigaasi Mercedeska ay u gadeen isaga iyo xaaskiisa Nadine ayaa lagu soo ogay ragii ganacsatada ahaa waxa dambi lagu helay bishii July ee toddobaad ee sanadkii 2024 ee la soo dhaafay waxana aqalka sanadkii iska casilay bishii Agoosto ee 8aad ee sanadkii la soo dhaafay marka waxa garsooruhu uu arbacadii ku xukumay 11 sano oo xabsiya waxyaabaha uu ku eedeysnaa oo dambiga lagu helayna waxa ahayd in uu laaluush qaatay iyo wakiil wadan ajnabiya uu ahaa sida darteed ayaa loo xukumay ragii kale ee la eedeysnaa isagana waxa lagu xukumay sanado kala duwan Fred Davis oo ganacsadaha la eedeysnaa kamid ah 7 sano ayaa lagu xukumay Wael Hana isagana 8 sano ayaa lagu xukumay sanadkan kan hore ee la xukumay arbacadii waxa uu leeyahay xaaskiisa ayaa iska leh lacagtaasi iyo dahabkaasi xaaska ayuu eedo dusha ka saaray wuxuu yiri mana uusan ogeyn inay ka qaadanayso raggaasi ganacsatada oo aan saaxiibka ahayn iyadoo way xanuunsatay kansar darteed sida darteed maxkamadeeda bisha 3aad ee March ee soo socota ayay bilaaban doontaa waxana sidoo kalena jira in mid kamida saddexdii nin ganacsatada isagana dambigiisa uu qartay isla markaana uu ku marqaatay furay raggan waxana laga qafiifiyay xukunkiisa laakiin waxa Robert Menendez senatorkii hore markii la xukumay arbacadii uu yiri arrintan waa arrin siyaasadeed Trump waa uu saxsanaa ayuu yiri markii hore ragga soo horjeeda Trump ayuu ahaa mogta Trump waa uu saxsanaa arrintan waa arrin siyaasadeed racfaan ayaana ka qaadan doona ayuu yiri New York arrinta ka jirtana وما عدالة كما جرت أيوري محكمة هذا سيدا درتد أرنتا رحفانا يان كقادم دونا سكستوا هايغو قادته مرقا أرنتا سنوا أي جرتا وسنة تركاسي دنبيق انتا لغوها لي إستغانا الله حكومي أدي أدو ما سنتين أصحابتا انتا المركرة كل مدونا وصاحبكين علم